asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal, kuna soo dhowaada barnaamij cusub oo aan kusoo bandhigayno qaar ka mida codadkii ugu saameynta badnaa ee wariyeyaashii kasoo shaqeeyey idaacaddii b b c-da ee qeybta raadiyaha, kuwaasoo ahaa codad saameyn badan ku leh dhagaha dhagaystayaasha shacabka soomaaliyeed ee ku xidhnaa warbaahintaas b b c oo muddo dheer shaqaynaysay, taasoo waqti hore ahayd isha keliya laga heli jiray wararka iyo dhacdooyinka caalamka iyo soomaalidaba. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo aan qeybtii koobaad soo qaadanayno codadkaas cajiibka ah ee kaba muuqa dheer wejiyada shakhsiyaadka codadkaas iska leh. halkani waa b b c London oo aad ka dhagaysataan hirarka gaagaaban ee 13, 16, 19, 20, 30 iyo 40 mitirban internetka oo caalamka dhan laga dhagaystay hirarka FM magaalooyinka qaarkood saacada Afrikada barnaamijka waxa ay tilmaamaysaa 9 habeenimo oo gawa. halkani waa b b c London laanteeda afka Soomaaliga oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban. waxaa kaloo dhageystayaal nagala xiriirsan mawjadaha FM-ka iyo xagga internetka oo naga baari kartaan bbcsomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dadkana dhageysanayo barnaamijka caawana waxyaabahan ku soo qaadayno waxaa ka mid ah halkani waa b b c London oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee 19, 30 iyo 49 mitirban, kuwa FM-ka iyo barta internetka oo ah bbcsomali.com. habeen wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriirtay. barnaamijkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waa b b c oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efamyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar, internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com. duur wanaagsan dhegaystayaal, waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh. qodobadaan idinkugu hayo barnaamijkanna waxaa ka mid ah magaalada beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadihii halkaasi ka dhacay, iskuulaadka magaalada gaariso oo dad biyo ka cararay ay ku qaxeen. habeen wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba iyo mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee aanu ku soo qaadi jirnay waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka dhacay adduunyada tan aynu ku kor uumanahay. in la xiro barnaamijkii habeenkii ka bixi jiray laanta Soomaaliga ee b b c-da ee la yiraahdo caawa iyo caalamka waxa weeye marka ugu horeysa shakhsiyan mid aniga i taabanaysa, sababtoo ah barnaamijkaas waxa uu ka mid ahaa barnaamijyada aan aad ku jeclahay. marka taa laga gudbo, barnaamijkan caawa iyo caalamka waa barnaamij guuna oo muddo fara badan ay ku tixnaayeen dhagaystayaasha Soomaaliyeed. xilliyadii colaadaha jireen 30 sano la soo dhaafay, dadka maadaama ay maalintii shaqo ku maqan yihiin qaarkood oo aan raadiyaha dhagaysan, habeenkii raadiyaha ayay weheshan jireen oo macluumaadkii maanta dhaafay adduunka ka jira iyo arrimaha Soomaalida ka jira ayay kala socon jireen. maanta intaas ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeenan qeybtiisa koobaad. waxaad la socon doontaan qeybta labaad oo aan kusoo bandhigi doono isla wariyeyaashii ugu saameynta badnaa ee b b c soo maray, codkooduna ahaa codadka ugu saameynta badan leh. la soco barnaamijkan oo nagu xidhnow, kana mid noqo asxaabta ku xidhan ardaagan, oo haddii aad nagu cusubtay fadlan kanaalka subscribe saar, kuna soo dhowow. mahadsanid.